arrin cusub oo ku soo korortay xiisadda Somaliland iyo jabhadda gacan libaax. Maxay tahay arrintan cusub ee soo korortay? Maxaase ka ogtahay jabhaddan isku aruursatay buurta gacan libaax? Muuqaalkan ayaa kula wadaagi doonaa ila soco. Inuu ku bilownay odayaasha dhaqanka iyo ismada Somaliland oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Muuse Biixi ka dalbaday inay ciidanka ka soo celiso deegaanka gacan libaax, halkaasi oo jabhad hubeysan laga aasaasay. Ciidankii booliska ahaa ee Somaliland ee u dirtay deegaanka gacan libaax ayaa dagaal la galay jabhaddii looga dhawaaqay deegaankaasi. Qaar ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland ayaa hadda bilaabay waan labada dhinac ah. Madax dhaqameedka ayaa xusay inay la kulmayaan kooxdan hubeysan, waxayna xukuumadda ugu baaqeen inay ka soo qaado ciidanka booliska ee la geeyay deegaanka gacan libaax. Ugaas Axmed Cali Mahdi oo ka mid ah madax dhaqameedkii Hargeysa ka qabatay shirka jiraayad ayaa yiri, waxaan u istaagnay in colaadda ka jirta deegaanka gacan libaax aan dejinno. Waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay askarta ka soo celiso deegaankaasi, ayaa gudan doona waajibka naga saaran xalinta arrintan. Ugaaska ayaa intaasi ku sii daray, annaga ayaa askara oo nabadda raadinteeda u istaagnay, annaga ayaa dadkooda dib ugu soo celin doona. Wiilasha gadooday ee jabhadda samaystay sida meel laguma gaarayo. Suldaan Xasan Suldaan Cabdullaahi ayaa sidoo kale ka hadlay madashaasi, isagoo dhalinyarta gadooday ka dalbaday inaysan sameyn wax dhaqdhaqaaq intay ugu tagayaan odayaasha dhaqanka ee deegaanka gacan libaax tegi doona. Boqor Axmed Iimaan Warsame oo shirkaasi ka hadlay ayaa yiri, xukuumadda waxaan leeyahay idinkaa ka mas'uula wixii xumaaday iyo wixii hagaagaba. Waxaan leenahay xabad xal ma noqotee ciidanka aad buurta gacan libaax geyseen dib ula noqda oo ku celiya xeryahooda. Dhalinyarada gadooday waxay naga ballan qaadeen inaysan xabad ridi doonin, damaanad adag ayayna siiyeen, waxayna dareensan yihiin in annagu aan mas'uul ka nahay. Waan u soconaa ee ciidanka ha ka soo celiso xukuumaddu, ayuu yiri Boqor Axmed Iimaan Warsame. Shirkan jiraayad ee ay qabteen isimada, nabadoonnada, suldaanada iyo ugaasyada intuba ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maamulka Somaliland uu halkaasi u diray ciidamo dhowr ah kuwaasi oo ku wajahan buurta gacan libaax, sidoo kalena halkaasi dagaal ka fuliyay. Waxaana la isdhaafsaday rasaasta noocyadeeda kala duwan, iyadoo khasaare hor leh oo ka dhashay dagaalkii ka dhacay buurta gacan libaax. Dagaalku ayaa haatan wuxuu socdaa maalintii labaad, balse isimadu ayaa waxay sheegeen in laga soo qaaday ciidamada Somaliland halkaasi, sidoo kalena lagu celiyo guryahooda iyo xeriyihii marka hore laga soo waday. Waxayna sheegeen in dagaal xal u ahayn, balse ay la hadli doonaan wiilashaasi gadoosan ee jabhadda samaystay. Daba lama oga inuu Muuse Biixi Cabdi iyo maamulkiisa yeeli doonaan in ciidamada halkaasi laga soo qaado, maadaama marka hore ay xaggaasi ugu direen inay awood u isticmaalaan. Muuse Biixi Cabdi ayaa haatan waxa uu aaminsan yahay wadada kaliya oo xalka ku jira inay tahay dagaal, isagoo dagaalka haatan laascaanood ka socda oo sabab u ahaa. Sidoo kalena ciidamo dheeraad ah uu geeyay guud ahaan gobolada SSC Khaatumo, halka SSC ayaguna ay la yimaadeen ciidamo dhowr ah. Waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kaasi oo ilaa haatan socda, waxaana socdaa dagaalkaasi muddo 7 bilood ah. Haddaba jabhaddan oo maalin dhow ismagacooday sidoo kalena fadhiisiin ka samaystay buurta gacan libaax ayaa haatan waxa uu ciidamo kale u diray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi halkaasi, waxayna sidoo kale dagaal ku qaadeen jabhaddii halkaasi ku sugnayd. Haddaba rasaas ayaa la isdhaafsaday, waxaana jirta markaasi dhimasho iyo dhaawac laga soo warinayo inay ka soo gaartay labada dhinac, balse isimadan ugu kacay inay ilaaliyaan nabadda haatan ka jirta Somaliland iyo dagaaladan ka soo ifbaxay gudaha Somaliland ayaa waxay sheegeen inay u taagan yihiin inay xaliyaan wixii khilaafaad ah, loona baahan yahay in ciidamadaasi laga soo celiyo buurta gacan libaax. Jabhaddaasi is aruursatayna ay isimada dhaqanka la hadli doonaan, ayna kala xaajoon doonaan waxay ka gadoodeen. Waa sidii hadal ku dhigeen, waxayna amar ku siiyeen Muuse Biixi Cabdi inuu ciidamadiisa dib uga soo laabto halkaasi. Arrin cusub oo ku soo korortay xiisadda Somaliland iyo jabhadda gacan libaax. Maxay tahay arrintan cusub ee soo korortay? Maxaase ka ogtahay jabhaddan isku aruursatay buurta gacan libaax? Muuqaalkan ayaa kula wadaagi doonaa ila soco. Inuu ku bilownay odayaasha dhaqanka iyo ismada Somaliland oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Muuse Biixi ka dalbaday inay ciidanka ka soo celiso
deegaanka Gacan Libaax, halkaasi oo jabhad hubeysan laga aasaasay. Ciidankii booliska ahaa ee Somaliland ee u dirtay deegaanka Gacan Libaax ayaa dagaal la galay jabhaddii looga dhawaaqay deegaankaasi. Qaar ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland ayaa hadda bilaabay waan labada dhinac ah. Madax dhaqameedka ayaa xusay inay la kulmayaan kooxdan hubeysan, waxayna xukuumadda ugu baaqeen inay ka soo qaado ciidanka booliska ee la geeyay deegaanka Gacan Libaax. Ugaas Axmed Cali Mahdi oo ka mid ah madax dhaqameedkii Hargeysa ka qabatay shirka jaraa'id ayaa yidhi, waxaan u istaagnay in colaadda ka jirta deegaanka Gacan Libaax aan dejinno. Waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay askarta ka soo celiso deegaankaasi, ayaa gudan doona waajibka naga saaran xalinta arrintan. Ugaaska ayaa intaasi ku sii daray, annaga ayaa askara oo nabadda raadinteeda u istaagnay. Annaga ayaa dadkooda dib ugu soo celin doona wiilasha gadooday ee jabhadda samaystay, sida meel laguma gaarayo. Suldaan Xasan Suldaan Cabdullaahi ayaa sidoo kale ka hadlay madashaasi, isagoo dhalinyarta gadooday ka dalbaday inaysan sameyn wax dhaqdhaqaaq intay uga tagayaan odayaasha dhaqanka ee deegaanka Gacan Libaax tegi doona. Boqor Axmed Iimaan Warsame oo shirkaasi ka hadlay ayaa yidhi, xukuumadda waxaan leeyahay idinkaa ka mas'uula wixii xumaaday iyo wixii hagaagaba. Waxaan leenahay xabad xal ma noqotee ciidanka aad buurta Gacan Libaax geyseen dib ula noqda oo ku celiya xeryahooda. Dhalinyarada gadooday waxay naga ballan qaadeen inaysan xabad ridi doonin, damaanad adag ayayna siiyeen, waxayna dareensan yihiin in annagu aan mas'uul ka nahay. Waan u soconaa ee ciidanka ha ka soo celiso xukuumaddu, ayuu yidhi Boqor Axmed Iimaan Warsame. Shirkan jaraa'id ee ay qabteen isimada, nabadoonnada, suldaanada iyo ugaasyada intuba ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maamulka Somaliland uu halkaasi u diray ciidamo dhowr ah kuwaasi oo ku wajahan buurta Gacan Libaax, sidoo kalena halkaasi dagaal ka fuliyay. Waxaana la isdhaafsaday rasaasta noocyadeeda kala duwan, iyadoo khasaare hor leh oo ka dhashay dagaalkii ka dhacay buurta Gacan Libaax. Dagaalku ayaa haatan wuxuu u socdaa maalintii labaad, balse isimadu ayaa waxay sheegeen in laga soo qaaday ciidamada Somaliland halkaasi, sidoo kalena lagu celiyo guryahooda iyo xeriyihii marka hore laga soo waday. Waxayna sheegeen in dagaal xal u ahayn, balse ay la hadli doonaan wiilashaasi gadoosan ee jabhadda samaystay. Daba lama oga inuu Muuse Biixi Cabdi iyo maamulkiisa yeeli doonaan in ciidamada halkaasi laga soo qaado, maadaama marka hore ay xaggaasi ugu direen inay awood u isticmaalaan. Muuse Biixi Cabdi ayaa haatan waxa uu aaminsan yahay wadada kaliya oo xalka ku jira inay tahay dagaal, isagoo dagaalka haatan laascaanood ka socda oo sabab u ahaa, sidoo kalena ciidamo dheeraad ah uu geeyay guud ahaan gobolada SSC Khaatumo, halka SSC ayaguna ay la yimaadeen ciidamo dhowr ah. Waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kaasi oo ilaa haatan socda, waxaana socdaa dagaalkaasi muddo 7 bilood ah. Haddaba jabhaddan oo maalin dhow ismagacooday, sidoo kalena fadhiisiin ka samaystay buurta Gacan Libaax, ayaa haatan waxa uu ciidamo kale u diray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi halkaasi, waxayna sidoo kale dagaal ku qaadeen jabhaddii halkaasi ku sugnayd. Haddaba rasaas ayaa la isdhaafsaday, waxaana jirta markaasi dhimasho iyo dhaawac laga soo warinayo inay ka soo gaartay labada dhinac, balse isimadana ugu kacay inay ilaaliyaan nabadda haatan ka jirta Somaliland iyo dagaaladan ka soo ifbaxay gudaha Somaliland ayaa waxay sheegeen inay u taagan yihiin inay xaliyaan wixii khilaafaad ah, loona baahan yahay in ciidamadaasi laga soo celiyo buurta Gacan Libaax. Jabhaddaasi is aruursatayna ay isimada dhaqanka la hadli doonaan, ayna kala xaajoon doonaan waxay ka gadoodeen. waa sidii hadalku dhigeen, waxayna amar ku siiyeen Muuse Biixi Cabdi inuu ciidamadiisa dib uga soo laabto halkaasi.